Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa maama Maandeeq Beauty, Maandeeq Yarisay saloonkeeda maasha Allah. Maantana cilaan qurux badan oo faashiyoona labada gacmood maasha Allah saana noogu bilaabanayaa. Bulkeetiga dhibcahan weli ma idiin soo gelin, waxaa idiin soo geliyaa soo 4 dhibcood la gelinayo iyo asigoo la buubuuxinayo. Marka maanta hadda kan maxaa waaye asigoo dhibca la gelinayo. Weli waxaa idiin dhiman asigoo haddana sag dhexda laga gelinayo. Marka dhowr nuuc waaye, marka wuu badan yahay. Dhowr nuuc oo u qaybsamaa ilaa iyo adiga 10 way gaarayaan nashqadihiisa oo isla disaankan loo saarayo. Marka waxaan jeclahay nuucba mar inaan idiin soo geliyo sida uu kala baxayo hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Marka maasha Allah kariim wixii haddana ayagoo isku eg bay haddana wax yar ay ku kala bedelan yihiin. Marka hadda kan dhibca waaye buuxis ma ahan. Mid oo 4 dhibcood geesaha laga saaraya jiro, mid oo sag la gelinaya jiro. Maasha Allah laakiin maanta keena dhibca waaye. Maasha Allah ka raali noqdo xoogaa kaamirada waxaa waaye gabadha ii hayso meeshana waa jaam. Nafaas male meel lagu kala nafaasayo ma lahan. Marka xoogaa cariiri waaye, cariiriyaan ku duubeynaa. Waayo waxaan rabnaa inaan idiin soo gelino oo idinkana intaas yar aad ka faa'iidaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo. maasha Allah ka faa'iideysi wacan maasha Allah. Mar walba waxaan jeclahay inaan wax yar caleen yar baha noqote haddii aan soo dhigayo inaad ka faa'iideysatiin aan jeclahay. Waayo waxa markaad mar walba aad sameyso oo saarto waad baranaysaa hadduu Ilaahay yiraahdo. maasha Allah maasha Allah. Marka safaraha korkooda xoogaa haddii waxaa u maleysaa inay kaamirada ay fogtaa laakiin waad fahmaysaa. Inta aad aragto ka faa'iideyso meesha xoogaa yar gacanta kaaga aadanaya dadka hadda inay kaamirada dadka ay qabato lama rabo waayo qof baa ogoleen. Marka qofka wuxuu jecleen ma fiicno inaad ka duubto. Marka hadda gabadhan xoogaa cariiriyaan ku jirnaa. Sidaas daraaddeed qaybtii gabadhan kale hadday iga soo marto dadka la arkaa marka saas baa xoogaa gacanta aan loo arkayn meelaha qaar. maasha Allah gacanta kalena fariiriyada saanay ku bilaabanaysaa iyadana. Marka xoogaa cilaankan waa waxaa u maleysaa inuu xoogaa yar boodayo. Marka maxaa keenaya meeshaas xoogaa cariiriga meesha. Marka ka raali noqdaa inta yar oo aragtana ka faa'iideyso. Waayo intaas yarba inaan xoogaa idinkaga faa'iideeyaan jeclaysta. Marka waxaan jeclahay wax walba oo markaas idinka haba yaraatee wax yar aad ka faa'iido qaadanayso inaan anigana kaaga faa'iideeyo. Marka xoogaa hadda maasha Allah waad arkay baan u maleynaa. maasha Allah intaas ka faa'iideyso kareenkaaga soo qabso. inaad barataan jeclahay barashadaada waa barashadeyda. maasha Allah anigu waan kugu dadaalaya inaad barato laakiin adigana muuji dadaalka inaad dadaasho laga rabaa. laakiin haddaa dhahdo cilaan aan barana mana dadaalay walaahi cabaar waad sugay adigana inaad barato. laakiin haddii aad bacda soo qabato oo isla markaas kareenka aad ku shubato cunugii kuu dhow amba qofkii kuu dhow keen gacanta dheh mari. nashqadii aad aragtaba mari oo si deganaan loo marihayo oo marin karta mari waad baranay hadduu Ilaahay raali ka noqdo insha Allah waad isoo xasuusanay kulley waad baranay. maasha Allah bacda afkeeda markay wax kaaga halaabaan mara yar amba tiishar qaado afka hore ka tir. afka hore iyadoo wixii ku yaalyaalaan ha ku sii qorin haddii kale xoogaa meesha waxay kaa yeelanaysaa wax oo tirtir camal waxaa gaaraya bacda afkeeda. marka kaba soo qababa adiga canjeerada markaad dubay sidoo kale galaaska xoogaa inaad ka tirto soomahan amba qaandada. laakiin haddii aad adoo ka tirin oo nadiifin aad ku dubto way halaabay maho. marka anaga maxaa nahay maho qof dumaraan nahay. dumarkana wax kasta wuu isla fahmi karaa. marka bacda afka ka tir. mar walba bacda afka ka tir markii aad dareento inay afka xoogaa ku halaawdo daawo ka tir. marka laakiin markasta inaad tirtirta ma markaa ka dareento inay wax ku halaawdo
waa fiirine waad ka tiree wax yar. marka maasha allah hadda faashiyonka gacanta kale waaye iyadana siday kusoo baxdo waa isla arkeynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo. maasha allah waad baranaysaa, horaa kugu sheegay cunto karisba waa baratay, cilaanna waa raqiis, wax oo lala dhashta adduunkan ma jirto moo. marka cilaankana waa basiid, waa baranay hadduu ilaahay raali ka noqdo insha allahu tacaala waa baranaysaa. hadda faraha waa hadda kan ma arkay sidoo faraha waaye maasha allah. haddii aad rabto faraha dhan waa dheerdheereyn kartaa, haddii kalena midaa dheereynaysid hadda aniga aan u dheereeyay faryareyda, tan kalena waad gaabinay, haddii kalena intaba waa dheereynay, haddii kale intaba waa gaagaabinaysaa. marka qofka asigaa dooqa le asaa ku warsanayo, amba ii gaagaabiyo ku dhaha amba ii dheerdheereeyo ku dhaha. marka qofka adiga wixii lagaa codsado inaad saari karto isku day. marka saasaa loo baahan yahay maasha allah. waa kaasa hadda taas waa midda dhexdaas ku jirto xoogaa way gaaban tahay, faryaridana way dheer tahay, tan xoogaa fardheertan wax yaray dheer tahay maasha allah. insha allahu tacaala waa baranaysaa, dadaalaa wuu gaaraa, horaan kugu sheegay haddii aad dadaasho waa gaaraysaa, laakiin haddii aad ka seexato ma gaaraysid moo. marka dadaalaa wuu gaaraa, dadaal muuji. maasha allah waa ujeedaa gacantana canjeeradaasa dhac ku siisay. canjeerada naftirkeeda markii la iskor saaro quruxay noqonaysaa maasha allah. waa ujeedaa aniga runtii waxaan jeclahay inaan idiin kala dhigdhigo si ay u fahantaan. marka aniga dadaalaan muujinaa, waayo waxaad dirtaan aan u hadlaayo waxaa waa inaad barato oo muusig iyo waxaan kugu saari lahay waa inaad barato, waayo hadda waan saari karaa laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego si aad u barato ood u fahanto. halkaas hadda meeshaas waa ujeedaa waxaan gelihaynaa warwareega yariiska maasha allah. suulka haddana noo bilaabanayo, ariiqantaasaa jak ku siinaysaa, waa ku celihaysaa mid labaad dhac. canjeeradaada waa tasaa, canjeerada cilaanka way qurxisaa maasha allah. canjeerada kaliya haddaa iskor saarto asaa falaawar noqonayo maasha allah. wallaahi maasha allah. ilaahay ha noo barakeeyo, idinkana ilaahay ha idin baro, waad baran doontaa. dadaal bacda sameyso, dhab soo siisa kareenkaaga ayar marmari haddii kale buug soo qaado mari, buuga korkiisa xataa marmari, waa baranaysaa insha allah. laakiin haddaa ka seexato ma baranaysid. cilaanaan rabaa inaan barto, ficilkeeda ma keenaysid, ma baranay marka ma baranaysid. laakiin cilaanaan bartaa mu ahaa, kareenka aawo dhab, bacdi aawo dhab ku shuba mari, haa waa baranay markaas. laakiin walaa cilaanaan rabaa inaan barto saan waayo waa barala ahee ma baranaysid. kareenka soo qaado, bacda soo qaado, sameyso mari, markaas haa waa baranay. laakiin inaan bartaan rabaa ma lagu baranaayo maasha allah. hadda gabadha cidiyaha hafaafay rabtaa, dad cidiyaha aan rabinaa jirto, dad cidada iyo buuxi ku dhaha ayaa jiro, dadka isku mid maahan. hadda gacanta hore saanay kusoo baxday, tii kow aan saaraynay saanay noqotay maasha allah. waa ujeedaa kaasaas caleentaas yariista oo sagsagta le waa kaasaa maasha allah. waa ujeedaa gacan saanay noqotay maasha allah. markaasaa ujeedaa maasha allah. gacanta koowaad saan waaye, waa ujeedaa maasha allah. gacanta kow saanay ahayd, gacanta labaadna waa sida hadda aan ku tusayo kaloo soo marinayay. marka labada gacmood saasay u kala yihiin.
canjeeradaasna oo kuu sheegay cilaanka way kuu qurxinaysaa maasha allah waa baranaysaa adi dadaal muuji soo qabsa kareenka mari subscribe noo saar anigana like dhag noogu sii comment ka soo bixi maasha allah kariim haddii oo hore kugu saarnayna waa kaasaa maasha allah waa kaas labada gacmood saasay ku soo baxeen maasha allah subscribe-ka haddii aad iska hilmaamtay saaro hadduu hore kugu saarnaay gambaleelka furo haddii oo gambaleelka kuu furnaay comment ka soo bixi sidaas iyo nabadii